bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum kulanti habboon daawad ee lidilaahantiinba waxaad ku soo dhowaataan qaybtii 14aad ee sheekadeennii waxaanaynu u galnay cutubkii 3aad ee buuggeenna. qaybtan waxay ku bilaabmaysaa sidan: axmed waa kaa cayuuni soo wacay, dawankeedii wuu dhacayaa. cayuuni baa ka qabatay, codkeedu wuu xabiibsaday sidii ay u ooyeysay. cod aad u hooseeya ayay ku tidhi, axmedow gacali iga raali noqo, wallaahi waxaan waxba kama ogi, macaan anigu ismaan lahayn, sidaas ayay wax u dhacayaan. intaa markii ay tiri, axmed waxa uu ogaaday cayuuni in aanay arrimahan waxba kala socon oo ay ka madhan tahay. waxaan u go'aansaday inuu qorshihiisii u sheego, waanu u bilaabay. cayuuni anigu ma garanayo sababta waxaan inoogu dhacayaan. innagu waxaynu nahay lamaane isjecel oo nolosha ku midoobay. isdeji oo waxaa ha u bixin qaali. axmed, sideen isu dejiyaa? maxaan waad aragtaa waxa igu dhacayee? waxaan sameeyo garan maayo qaali wallaahi. cayuuni, xabibti arrin ayaan inoo hayaa, inaynu ku badbaadaynana waan hubaa. yaah axmed, ii sheeg, waa ballan waynu samaynaynaa. cayuuni, waxa aan rabaa in aan kula tago oo dhulkan oo dhan in aynu ka fogaanno ayaan rabaa. wax kasta oo aynu ku noolaan lahaynna anaa inoo dabaraya. ma sidaasaa? hayi qaali, waan ogolahay, ee goormo ayaynu baxnaa? waxa aan kaa rabaa inaad diyaarsato alaabahaaga fudud oo dhan, hana isku badin, moobilkaagana dabayso, qolkaagana iskaga jir oo caadi iska dhig, dhammaan qoyskaagana raalli geli. anigu sidaa ma moodayn dheh. marka caawa salaadka cisho laga baxo, farmasiga daweeye ee waddada madow u dhow kaalay, halkaas ayaynu iska raacine. laakiin halkaynu tegayna axmed? aniguba ilaa hadda garan maayo, laakiin markaas ayaynu go'aansanayn. axmed markii uu telefoonka dhigayba degdeg ayuu u diyaar garoobay oo boorsooyinkiisii ayuu xidhxidhay. dhanka suuqa ayuu u baxay. bangiga ayuu tegay oo ka soo qaatay wixii lacago kayda u yaallay. gaadhigiina waxa uu geeyey geerashka oo waxa uu damcay inuu iska sii hagaajiyo, boolashana u sii giijisto. waa uu soo shidaalaystay. degdegna guriga ayuu ugu soo laabtay. cayuuni dhankeeda filin aad u qurux badan ayay matashay. qoyskeedii oo dhan ayay qof ugu tagtay, waxayna ka dhaadhicisay in aanay reer iyo qabiil waxba ka aqoonin oo ninka ay ka heshay uun, haddana aanay waxba ku falayn mar hadduu reer qunyar socde noqday. arrinkaa waxa ay markhaati uga dhigatay hooyadeed, waxaanay ku tidhi, hooyo, marka ninka qabiilkiisa ay weydiinaysay maanan kugu odhan garan maayo. hooyadeed haa ayay ku jawaabtay. arrinkiina waa laga aqbalay. aabbaheedna waa ay u mahadnaqday maadaama uu ninkaa xun u diiday. aabbaheed arrinkaa wuu ku farxay, waanu soo dhoweeyey. qoyskii oo dhan cayuuni way aamineen. iyaduna qorshaheeda qaybtii koowaad ayay ku guulaysatay, waxaanay u guda gashay diyaarinta qaybta dambe ee qorshaheeda. qolkeedii ayay soo gashay, alaabteedii oo dhanna boorso yar ayay ku guratay. dhar caadi ah oo kuwii guriga lagu joogi jirayna waa ay xidhatay si aanay cidna uga shakiyin. cabsi badan ayay dareemaysaa, dhanka kalese jacayl xoog badan ayaa eryaaya. qolkeedii ayay hoosta ka xidhatay, keligeedna halkii ayay iska joogtay. xilligii hadhimada markii la gaadhayna inta ay soo degtay ayay si caadi ah ula cuntaysay. dadkii oo dhan ayaa aaminay, ayaduse axmed mooye cid kale ma aaminsanaa. sidii axmed u sheegay ayay samaysay. moobilkeedii ayay dabka gashatay. walaaladeed ayay qolkeedii ugu tagtay, waanay u sheekaynaysaa. wixii dhacay oo dhan in uu khalad ahaa ayay u qirtay si ay ayaga niyadda ugu dhisto. ma rabto in ay ka shakiyaan. duhurkii waa ay iska seexatay. casarkiina casariyaha ayay u soo karisay. axmed markii xilligii ballanta la gaadhay, gaadhigiisii ayuu geerashkii ka soo kaxaystay. halkiina waa uu isku sii diyaariyey. muddo markii uu sugaayey ayay u timi, ayada oo kaba dacasa, shalmad iyo dirac xidhan. waana la israacay. labadooda midna ma yaqaan meesha loo socdo, laakiin caashaq ayaa darawalinaya. magaaladii xumeeye idinlahaanteed waa ay ka dhammaadeen oo waa kuwa istabtii ama kontaroolkii dhaafay. cayuuni qoyskeedii waagii markii uu dilaacay ayay hambabureen. hooyadeed ayaa dhowr jeer u yeedhay, ayaana way u jawaabi weyday. ugu dambaynna walaalkeed ayaa qolkeedii jabiyey, waxaana la ogaaday inaanay qolka joogin oo daaqadda ama dariishadda ka dhacday. arrintaa aad ayay uga cadhoodeen, waxaana isku sii daayeen kontaroolka magaalada oo sawirradoodii geeyeen. markay gaadheenna waxaaba loo sheegay inay xalay dhaafeen. dhankii guriga axmed ayay isku shubeen ayaga oo ciidan badan wata. axmed aabbihiina waxa uu u sheegay
isba inuu wiilkiisii la'yahay. axmed aabihii waa loo hanjabay oo wiilkaaga waanu u dhammayn ayaa lagu yidhi. isla markiiba ciidan ayuu doontay si uu wiilkiisa budhcaddaa uga badbaadiyo. axmed aabihii kuma faraxsana arrinka meesha ka socda. dhowr jeerna wuu isku dayey inuu qanciyo, laakiin cidba waa ka dhegaysan weyday. waxa uu ka baqayaa in wiilkiisa laga dilo, inuu badbaadsadana wuu rabaa. axmed walaalkii iyo adeeradii ayaa isu yimi, waxaanay go'aan ku gaadheen inay wiilkoodii ayaguna dhankooda ka raadiyaan. axmed moobilkiisii wuu xidhay oo ma dhacayo. cayuunina sidoo kale ayana way xidhatay moobilkeedii. axmed iyo cayuuni waxay isla tageen tuulo la yidhaah Doqondila oo magaaladii ka yimaadeen 200 kiiloomitir dhanka galbeedna ka xigta. halkii ayay iskaga wada noolaadeen. markiibana qolo xer ah ayaa isu meheriyey oo sidaas ayay ku noqdeen nin iyo xaaskiis. tolkii meesha degganaa ayaa u dhisay aqal Soomaali aad u qurux badan. halkii baana iskaga wada noolaadeen nolol ta ugu quruxda badan. farxadoodii ayaa sarreysa. dhulka iyo cirkuna waabay la sii farxeen. cayuuni tolkeedii sawirro ayay meel kasta la yaacayaan oo waxa ay raadinayaan boqoradoodii. ballan ayay ku qaadeen inay dilaan axmed marka ay nolol ku qabtaan. inantoodana ma rabaan in ay wax gaadhaan. waxa ay ka yaaban yihiin khiyaamadii ay ku samaysay iyo sidii ay uga baxsatay. cayuuni aabbaheed waxa uu canaan dhagaha kaga jiidayaa hooyadeed. adiga ayaa waxaasoo dhan noogu wacan ayuu leeyahay. kayse suuqii ayuu mari kari waayey. halkii uu istaagaba waxaa lagu leeyahay walaasha nin reer qansax ah ayaa la tegay. arrinkaas isaga way dhibaysaa. waxaanu go'aan ku gaadhay in uu ninka dilo ama aabbihii dilo. dhankii guriga axmed ayuu u soo rooray. maalinkaa guriga waxaa joogay axmed walaalkii Khadaryare oo keliya. Khadaryare wixii maalinkii golaha la joogay walaalkii ku dhacay ayuu xasuusan yahay oo weli muu ilaawin dulmigii walaalkii loo geystay. qoyska axmed saaka way ka leheen dhammaantood oo axmed ayaa meel lagu sheegay ayana way raadiyeen. khadar oo keliya ayaa kayse u soo galay. maxaase dhacay? qaybteena inoo xigta ayaynu halkaasi ka sii wadi doonnaa haddii allaha awoodda leh ogolaado. intaynu tan mid lamida ku kulmi doonnana nabadgelyo.